السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halka aad nagala socotaan waa xulasha media caawa barnaamijkeena waxa marti noogu ah Xamse Axmed oo reekaasal inta badan aysan garanay laakiin ay baran doonaan insha Allah taala. caawa barnaamijkeena waxaan ku falanqeyn doonaa dhalinta noo soo baxday ee noo matalaysa golaha ajaanibta ee kaasal. caawa waxaan barnaamijkaas inaan falanqeyno oo ayagana dardaaran aan u dirno insha Allah taala waxqabadkoodana ay muujin doonaan hadii Allah ugu diro idmo. waxaan kaloo dardaarmi doonaa in ay noqdaan hal jaaliyadood oo isku xiran maadaama ay Soomaalida halkaan ay ku badan tahay waxqabad badan oo idin hor yaalo. Xamse ku soo dhaw barnaamijka markuu ugu horeysa maxaa leedahay? waan dhawahay isma waan dhawahay kulli sidaas sheegtay barnaamijkan wuxuu ku saabsan yahay hambaliyadaas oo degmada nimankii soo baxay golaha ajaanibta sidaas sheegtay laba kala hayeen laba xisbi ka soo kala baxeen laakiin maanta labadii maaha markii hore laba hayeen laba xisbi ka tartamayeen laakiin intii soo baxay maanta waa mid waa Soomaali ka dhamaantood waxaan leenahay inay waxaan doonaynaa inay isu tagaan oo waxaan ku leeyahay meel ka soo jeestaan waxqabadkooda iyo waxyaabaha ayagooda ay ka wada shaqaan saasan insha Allah. waa sax run ahaantii Xamse waxaad ka warqabtaa in dhalinyaro badan ay sheeg ama Soomaali badan ay isaga dhibaataysan yihiin dalka Jarmalka. kulay Jarmalka oo dhan ma wada gaari karaan laakiin maxaad ugu dardaarmi lahayd dadkaasi guud ahaan Jarmalka waxa joogo dhan wuxuu qabtaa mise gaar ahaan dadka kaasal ku nool inay maaragtay ay dhibaatada haysataa ama hadii sharci lagu adkeeyay ama ay sheeg turjumaan u baahan yahay ama ay sheeg warqado loo qoro kala camal maxaa markuu dardaarmi lahayd? kulay wax ku dardaarmi lahaa waxa charity begins at home shaqadu wax ka bilaabantaa guriga ka bilaabantaa markaa waxaan u lahaa markaa cusub kulli wax kasta waa step by step waxaan lahaa hawsha kulli deem madaxa lagama bilaabo mijaha laga bilaabaa waxaan lahaa xagga hoose ka bilaabaa markaa intaa kaasal gudaheeda dadka ku dhibaataysan iyo waxyaabaha ay muhiimka ah ay ka qaban karaan waxaan leeyahay kaasal xagga hoose waxay guriga ka talantahay xagga hoose ee ka soo bilaabaan magaalada kaasal waqti waxqabadkooda ay ku muujiyaan markaa intaa ka bacdi ay ku baahiyaan dhammaan dadweynaha Jarmalka saas oo oran lahaa. waa sax waa maasantahay Xamse. waxaa kaloo jira dhalin kale oo la tartamaysay dhalinta hadda soo baxday run ahaantii ayagana muujiyay dadaalkoodii laakiin nasiibkana u saamixi waayay inay soo baxaan oo ayagana isku day wanaagsan ay sameeyeen run ahaantii ayagana meeshan waa uga hambalyeynayna kulay hadii micnaha doorashadan xilliga ay ku egtahay dhamaato ayaga way soo sharaxi doonaan nasiibkooduna way heli doonaan. waana mahadsantihiin intii yani Soomaalida matalaysay oo u istaagtay in maanta golaha ajaanibta ay noo galaan run ahaantii labada xisbiba aadaan ugu mahad celinayaa. waxaan kaloo aad ugu mahad celinayaa run ahaantii oo laf dhabar u ahay xisbiyadan oo dhanba inay micnaha ay soo wada baxaan oo asaga hadii uusan jiri lahayn ninkaasi aysan Soomaali xitaa aysan haweysateen Cabdullaahi Wacays run ahaantii waa nin mug kule meesha magaalada kaasal asagana meeshan maartay waxaan uga hambalyeynaa oday oo hal door weyn oo magaalada noo joogay inuu yahay insha Allah taala. barnaamijka waxaan joognaa gunaanadkiisii ayaan ku sii dhownahay run ahaantii waxaan dardaarmeynaa aniga iyo Xamse iyo dhammaan inta aad matashaan oo reer kaasal in waxqabadkiina oo noqdo waxqabad muuqda oo aadna isku xirnaataan aad noqotaan hal jaaliyad insha Allah taala. macnaha gacmo wada jir bay wax ku gooyaan hadii tafararuq uu jiro waxba ma qabsan karno. waxaan kaloo rabaa inaan u sii sheego aan ku sii adkeeyo yani labada xisbi xafiis in ay furtaan oo ayaga ay leeyihiin oo loogu soo hagaago oo dadka ay ka caawin karaan ama dadkii dhibaataysan waxay rabtaba ha noqoto kulay Soomaalida caawinaad bay u baahan tahay dadka luqadii inta badan ma wada yaqaanaan marka intaas ayaan leeyahay. Xamse maxaad ku sii daraysaa? kulli wax ku dag lahaa ismaan kulli hadalka intii badneed waa dhameysay barnaamijku wuxuu ku leeyahay gabagabo marka waxaan leeyahay nimankii kale ee tartamayay ee maanta aan soo bixin maanta oo kaliya maaha bidtoole iyo maalmo dambe way dambeeyaan kadib markay inta dhamaato insha Allah waa idin kulaftiin waa iman doontaan laakiin meedu khasaarin in waxaan ku isku daydeen qof dad wax isku dayay baatiin waxaan leenahay insha Allah idin kulaftiin waad la shaqeyn baad iga dhaxayn doontaan nimanka soo baxay idinkuwa marka insha Allah wada shaqeyn wacan iyo isku toobni
ayaan ku barnaamijkii waxaan idin leenahay waxqabadkiina ha noo muuqdo insha allahu tacaala waa idin baahannahay inaad maaragtay wax noo qabataan dhammaanteen soomaalida ku nool Kassel Jarmalka gaar ahaan magaalada Kassel waxaana jeclahay inaad u gudbi doontaan haddii ilaahay idinkeeda leeyahay Ganz Deutschland oo dhan inaad maaragtay aad caawin doontaan waana mahadsantihiin hambaliyaan idin leenahay hambaliyo guuleysta waa guuleysateen insha allahu tacaala dadaalkiina meesha ka sii wada insha allahu tacaala waana mahadsantihiin wabillahi tawfiiq assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh